khadiijo aadan cabdi khadiijo kuweyt waa xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka maamul goboleedka Jubbaland waxaa laga soo musaafuriyay magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka maamulkaasi kadib markay sheegtay dhibaato xoogan in halkaas loogu geystay khadiijo kuweyt waxay soo gaartay caasimadda Soomaaliya Muqdisho waxayna la hadashay TV-ga caalamiga ee Kalsan waxayna sheegtay magaalada Kismaayo dhibaato xoogan ugu geystay hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Midoobe iyo saraakiil ciidan waxayna sheegtay in si qasaba looga soo musaafuriyay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Jubbaland muddo hadda bil ka yar baan ka soo maqanahay 20 beri aan ka badnayn Jubbaland markii la abuurahayay waxaa lagu soo abuuray magaalada la yiraahdo Nairobi beelaha u abtirsada jubbooyinkana uma wada dhammayn systemkaas iyo barnaamijkaas dad gaara ayaa u tun weynaa oo joogay dastuurkina ayaga maaragtay soo madmadoobeeyo soo qoray annaga markii nala dhaariyay shacab baan ahayn markii nala dhaariyay waxaanu sugayna waxay ahayd inay dastuur ummadda wada quseeyo oo wada matalaadii lagu wada haysto naloo keenay ergooyin baa yimid mid walba maaragtay ka turjumaya markaas gobol aakhirka anagu nagu soo wareegay dastuurkii markaan aragnay waxaan isqaban karin baa ku yaala waxaan isqaban karin haddana xeer hoosaada loogu sii dhis maadaama beelaha jubbooyinka dega lagu xaqiray hadda dadku waxay ku doodaan annaga dekada waxna lakama siin annaga airbortka waxna lakama siin kanaa markii hore laisku qalday kan percentageka wax loo qaybsaday markii ninkii 30 lahaana uu 3 qaatay ninkii 3 lahaana uu 20 iyo dhowr qaatay iyo kuwaas kuwa la midaba halkaas waxa kaaga soo baxaya dadku inay la kala sareeyo camal mara la kala sareeyo waa ragga wuxuu aayad quraana maahay waa raggu siday hungurigana u kala jeclaysteen iyo shay qaybtana u kala jeclaysteen annagu marka haddaan nahay dadka beelaha dega Jubbaland waxaan kugu sheekeeyay oo ku aqbalay anoo khadiijo kuweyda xaq maahana waa xal ku qaado 4 sanaan intaas afka iyo gacanta isaar ma xaqiraya Jubbaland waxaan ku haysanaa nabad bay ahayd nabad aan wax kala dhaafin gaaja loogu baqtiyay ciidamadu gaaja ugu baqtiyeen noloshu dad gaaray u shidnayd been ma idin sheegay anaga noloshu dad gaaray u shidnayd laakiin midaana ka inkirayn haddaan dhintay haddaan noolahaba waa haddaan dhinto waaba dhintay waxay ahayd nabadgelyo aan ku haystay gurigayga anoo staff haysan baan joogay gurigayga gaaja ay ku dhaxaysay kuwa ila mida oo jaalkaygana saasay ahaayeen tig waa naga dhamaaday annaga weli iska taagtaagan bahalkiina horteena lagu laqay awalba xaqdarra lagu soo qoray intii aan ku dhigno xal moodin waaba nala ka xogay hadda annaga iskala ka dhacday annaga iskala bahalkan gacanta ma noo taagta mase halkaasay maraysa hadda nabadgelyadayda aniga waxa aan ka soo cararay kuwa systemka noogu jiray aniga beeshayda kuwaasa hub igu soo ceyrsaday kuwaasa cay aflagaado ii soo geystay lafayga la soo cararay marka dadku dhibaatada uma sinna sharcigan koroo dumaysa waa systemka Jubbaland oo dhan anaa ku jiray marka waa aqbalay hadda biyo ka badan iyo dah maxaa la yiri col ka badan waa ku harqiyaan 2 qof 3 qof aan ku joogaa baarlamaanka beeshaan ka soo jeedo maxaa ka bedeli karin beelooyinka meesha degan sidoo kale laba hal ugu jira waxa weeye waxaan ku kor gowracnaaday urdoox hooyadii isku gowracane kuwa iga badnaa waxaan u raacayna xal ma ana fahmi way wax inay xaq darro meesha ka jirto xildhibaan khadiijo kuweyt oo sii hadlaysay ayaa baaq waxay u dirtay dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo ka codsatay in dowladdu ay faragelin ku sameyso handadaada iyo dhibaatada lagu hayo xildhibaanada baarlamaanka maamul goboleedka Jubbaland ay sheegtay inuu ku hayo hogaamiye Axmed Midoobe waxaan ka codsanayaa beesha caalamka codsanaya dowladda federaalka ka codsanaya xaq darradaas in wax laga qabto xaq darradaas maanta magaaladii Kismaayo waxa lagu haystaa waa nabad mujaaca ka jirta dhaqaalaha la soo geliyo ma aragno macaawanooyinka yimaado ma aragno lacagta dowladda federaalku geliso ma aragno qola gaara noo cunta oo systemka oo qabiil ahayn niman caloosho halkaas wada tagto 10 la dhistaa jira
oo dabaqya iskor saartay annaguna kiiradaan iska bixin weyne intaasaan idiin sheegayaa waxaan rabaa Jubbaland cadaalad wax loogu qaybsho meel lagala dhacaba cadaalad wax loogu qaybsho haddii kale soo maahan sida ay buuqa u bilowdo oo kabtuur u bilowday ahaanaysa dadka ma quusanayo qofka ilaa naftu ka dhacdo intaasaa idiin sheegaya Cabdiraxmaan Kambala Kalson TV Muqdisho.